warwaadigan kashkashdayna kelmadaad mar tiraahdo mid kaabil ahayd kolna aan oranayni ma kaftankii kalamaane kulmiyad ku barbaartay qofba meesha karaysa waa inuu ka hadlaayo taada haygu kabix kuroodaanan kolkooda hooy kurbadii ahayd sheegado boowe kolkan geela u heesno aad dameera kaxayn no dadkan la isku kabaayo midba koonaha jooga adeer isku keenay aga eega managa isku maana maxaad kayga ku diidi dadku waa kalamaan kulmiyaana midaysay horta sheekadan kalamaana maxaa tiiriya may erti midii midaysay maahino kalamaanay waa duceeyaha berigay aamiin iidhaha beriga xaal la qalay hee duco waa daaca ka hoose dufan ma haysaa warqalbadhigax wuxuu yidhi markii madaxweyne farmaajo la dooranayay ariyaan qalay uu yidhi laakiin kadib anaa eeduu yidhi ducadii ilaahay uma aqbalin miya war abdullaha waarta ma jiray do'aayahooba eri aaminta le afkiin ma buuytana aamiinta ducadiyo alla bariga mooye arrin kale mahayne ambaroy muga waxaas ma ducaa waa calaa caliya ooyine war adiga ducadaad sheegaysa aawe ilaahu xaq u dilaaco dushaa sare ou ka nuuro daacadi weligeed korraysa dulmino ou hoos ahaado ilaahow dhiiggi daatay dawiya nabad noogu doori war maanta aamiintiinaa baxaysee mawlaceed ka soo qadayseen war wax ma ogida dhallinyarada muqdisho waxay bilaabeen in la ducaysto si ilaahay dhibaatada nooga qaado markaa odayaashiina waa ku daydeen miyaa geedagi jinka boodaboodo koofade waa leeri war waxaa la yidhi qofka reerka u weyna hadduu waala cayaaro warasada yaryareedna sow la sii wadi mayso aryaadhaha waxaa la yidhi haddii aabba qamaaro ma qunaata hooyadu war waliba la eray owlaadi aawsho gurbaan dhowow iyona sarsargooyowkag baradaayanga la eri war waayeelka cayaar ayaan ku soo xasuustaye maanta madaxweyne muuse biixi handaraabkii toddobaad ka hor ilaahay ka jebiyey ayuu maanta haleelay inuu hoosta ka xidho haddana heshiiskii iyo dhexdhexaadintii odayaashu ka shaqeeyeenna hal bacaad lagu lisay buu ka dhigay madaxdii xisbiyada maanta u tegana wuxuu ku yidhi waxaan isku ogayn oo dhan anigu waan ka baxayee xafiiska iiga baxa guddiga komishinkuna waa kii aan magacaabay wax laga noqonayaana ma jiraan doorashadana iyagaa qabanaya waana ku qasbantiin yaa muuse handaraab ma qoysa mana qoor jaraa haddana war muuse handaraab iyo usi mar hor dhisaday hooba dabadaban galay hadan haqa taaradi may ku weelasan war cabdiraxmaan cirri iyo faysal cali waraaba isla markii warbaahinta ay u waxdeen laifna hore ay ka soo galeen awal baa naf kalena ma haynin ciidana uma joogin hadday miciin bideen hub warbaahinta ka weyni ma jiro war meel hoo aan baahan hadal walba ma ka taraw war waa yeellada cayaaraya waa badan yihiin madaxweyne xaaf arrintii galmudug markay soo dhadhawaatay ayuu gaalkacyo fadhiistay ikhlaaska meelaha gamohaye war waxaa la yidhi ninka ceebtaada rabo markay sabta dhammaato ayuu galabti ku yimaadaa sabtaasaan ku xusuustee hadda ka hore waxaa la yidhi meel sab lagu kala baxay ka jirto aawadaad la xushmeeyahayo dig u soo yidhi goor ay tahay oo radhiciga adoogiyo qoyskii oo isku naxay mugay wadaadka arkeen markaasaa adooga inya wareeray ceebowyase inta ku orda harbaan rablaay wax walcada ma haysa ya adugu amaad wax walcada haysa ardumarow xaa jira arragow xaa jira mugaasaa islaamihiya wixii maha joogoo dhan waxay yidhan waxaan caloolahayn ma hayno wadaadkiiow inya u tegoo wuxuu yidhi shiikow horta culummo calool ma la sii karaa mugaasoo wadaadki wuxuu yidhi culummo calool lama siiyo mana bannaana ninka odaga ahay gurigow haddana ku naqda asoo yidhi aramaad wax wal haysiin arwax walamaad haysiinoon caloolahayn arwax baarbaara aasay waxay yidhaheen waxaan caloolahayn haddaba ma hayno ee ha kulugo'in wadaadkiiow inta ku soo laabtou yidhi wadaadow waxaan caloolahayn ma hayno mugaasoo wadaadki yidhi haddii cadii caddiin la waaye in culummadu caloosha cunto weeska sunnee keena war miyaadnaan maqal culumma masale ay ku bannaysatay midii ay ku cuntaba waa leeda la jiifiyaana bannaan la joojiyaana bannaan miya war odaxaafadda wuxuu keeni inuu gaalkacay doorasho kalaa ku qabanaa uu yidhaahdo war odaxaaf seeraar iyo xidig miyuu iska baraajaynayaa nabadii nolol ayadaa cayaarta bilowday in la cayaarana waa ku qasban yahay sababtoo waa kuwii baasta u geeyey hadda ka hor yaa minay hadda ka hor baasta u geeyeen allayleh asaguna hadda bariis ha u geeyo odayaal liiska iska waayana waa u soo gurmadeena la yidhi war odayga hadduu qaraabkiisi helo qaylada wajoojihahaa la yidhi war imaaraadkii mee gaalkacay jooga marka dawladdan xil ka qaaday oo xukumaysa dalkeenna madaxdaannu xushmayniyo maxay xaaf ka rabtaa waxay ka rabaan waa lagu yaqaanoo asagaa qaraab dhaaf laga waayey war ma ogidiine dhaqankii saxaafadda muqdisho lagu hayay dhuusamareebaa la geeyey ama u dhaqankaasu markii hore dhuusamareebta nafteeda nooga yimid hee war madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhuba galmudug waa ka soo jeedaana warka iga sug wariyaasha dawladda waxduubaha la yidhi kuwaan
kalena xabadkaa sacabka laga saara marka muuqaalada loo dirayaa sida halkan ku ogeydanba war dawlad warkii ay bixinaysan la wada yeelo waayey see maamulkeeda loo wada yeelo karaa war somalilan la iskuma caburiyo idinkuna sidaad kala yeelaysaan idinkaa yaqaana war somalilan caburun kama jirto laakiin handaraabaa ka jira war somalilan wariyaasha keliya xabsiga ku handaraabtaa maxay kaloo samaysaa aryaadaha war ma haysiin madaxweynahaan iyo shalay eritrea ka yimid berigow cumaan aada haddana mugga waxaan la yaabanahay madaxweynuhu muggow doorashada gelaya waa kii dhihi jiray safarka madaxweynuhu bishiiba 3 mar gelaayo sharci maahinoo wasiirka arrimaha dibadda jooga oo gelaya haddaana lama beriyo isku xigto kolba waddan cusub aaday ka warramahe war may baa dheegi jiray soo hagoogana sii hagoogana haruub maran side howlu kama harin habaarna u dheer war dalkan habaar kama dhicina naga tag fatahaada ka dhace naga tag fatahaad kaliya miyaa mugga qaraxaaba ka dhacay habaar maxaa noo keenay cabdullow haddaad bacaan ducaysana dhehaysaye war ma haysaane dawladda Soomaaliya maanta toorowtay ka dhigta waa la yaab wali saqiinka dheelayna tii miyay ku qarxisay war ma xirka ay ugu soo dhacday war ciriyo dhulba waa laga soo galay warka naga dhageysta ciidankii tanaba maanta ku durduriyay lacagtii iyo maxkamadii iyo xaakimkii ugu sareeyay lacagtay mariyeen wadaadkii dadka inta farta ugu yeera baadilka ku xukumi jirana suuta loo keenaya suuratul maaidah u fiiriye aryaadaha war ma haysiin waxa aniga saaka il igu dilay afar dhalinyaro oo shabaab ku toogteen degmada Sablaale dawladda ila shaqeeyayeen kulaha intay dawlad isku arkeen Sablaaleyba iska joogeen walaana waxa saaka ciil igu dilay askari kamid ah ilaalada xarunta dawladda hoose ee Xamar oo canug yar caseeyaha dilay warana waxaan xalakooyo waayo ciil igu dilay 3 caruur oo gaajo ugu dhimatay deegaanka Weedow hooyadoodu waa cuuriyaan ayeeyadooda u qaraab dooni jirtana waxa la yiri qaraxii ex control ay ku dhimatay warana waxa ciil igu dilay staafkii Axmed Madoobe shabaab u fakaday ya ama awal ka yimideen he war aniga waxa ciil igu dilay deegaanka Gamuuta ee Gaariso u dhow macallimiinta lagu dilay warana waxaan la yaaba shabaabkii weerarkaas geystay gabaray daayeena la yiri marka gabdhaha Soomaalida ay leeyireen maxay u badbaadi waayeen war naga tag malageedan geline war anina mayba iili dilay jidka isgooska dabka ka bahay madaxtooyahan bahay lihiri wareedhaha hadii dadka qaar shabaab laayo qaarna dawladdu layso qaarna gaajo u dhintaan maxaa soo haraya war ma haysiine dhibaatada faa'iida dhinac socota waxa la soo bandhigay buug la yiraahdo hagaha ganacsiga qofkii akhriyana wuxuu ka faa'iidayaa baa la yiraahdo xirfadu ku shaqaysa laha waxaana qoray aqoonyahan la yiraahdo Muumin Macallin Maxamuud oo lagu naanayso jaamici waa kii dalkeena ka dhimanay aryaadaha ayaamahan hawada la sarifahay haddana ma buugaad ganacsi nooga dhigteen war hawla sarifaw ma kan may bal eray albaa wal muamala leere war buugu waa ganacsina waa laga faa'iidaa buugana waxaad ka baranaysaa sidaad u ganacsan lahayd warnimayo waxa la yiraahdo hooyo wiilkeeda waxay ugu duceysay inuu isku helo dulqaadka Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Cabdiraxmaan Cirro aamusnaanta madaxweyne Farmaajo libaaxiyeynta ra'iisul wasaare Khayre mitidnimada Axmed Madoobe madaxadayga Muuse Bixi qoobka ciyaarka Saciidani nasiibka lafta garan danaysiga waare iyo qaraabka xaaf marka idinkana aamin u dhaha war hooyadaas wiilkeeda ducada waxa u dhinaa yaraankii ilma gareen galmudug ka soo socdo waranna waxaan Soomaalida leeyahay adigoo waxun tabanayo kaana kala taalo kala togan ku taban taabiye kan wax ku tarine walaal kala tasoobaana way taran yaraanadaane mar hadday istaageerin oo tala wadaagaynin tisqad ma laha oo waxa qabsada cadow ka taakroon arow runta waa toorilanka kiisuri lan laayikiisa saafay oo leere aryaadaha sanatar xaaji Muuse Suudi wuxuu yiri madaxweyne Farmaajo anigu qabiil uma nabci ee maamul xumadiisan saluugay war xaajiga hadii nabadii noolay ka wareegsatay wali ma soo taagan yahay war xaajiga Sayland waa lagu kari waay war Sayland hoobilka karu waay salaad ala jeel iyo ala geedin jibaabayaan war fiqi wuxuu yiri in isla kay sawira xilibaan waay war dadka nabadii noolay xil ka raba xilibaan fiqi ka dheeraadan Cabdiraxmaan Cabdishakuur wuxuu yiri nabadii nool Malaysia hatta waa iga daba timi hore waxa loo yiri dawlad gacan dheer gacantii Israel deeru ay Malaysia deerase aryaadaha nabad iyo nolol qofka diidaya horta xaw raba war hiigsi horumar ninka diidaya muxuu damacsan yahay war ninka xisbiga weyn diidaya maxaa deeqay yaala muranka naga daaya adaan ugu weyn noo bilaabay muranka buugi ganacsiga akhristo idinka dhan ganacsi abuurta ya bari toro man ad fili gudirkana ay ka dhaafe war waa noola duceeyo oda Cabdullaah noo duceeyo qaylada naga dhaafa ducadiisa aqbal ma anta kadib toro dalxiis aqbal wariya wala sabad furan jibi laga taga tawfiiqda Allah
idin waafajiye war muusana in handaraabka laga fura ku dar